kooxda kubada cagta ee Dekedda ayaa maanta waxay garoonka tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho ku soo bandhigeen macalinkooda cusub ee sanadaas oo aadan laba ciyaartooy oo ajaanib ah iyo weeraryahanka dilaaga ah ee Anwar Said Cali Shakunda. Macalinka cusub ee naadiga Dekedda ayaa lagu magacaabaa Rashid Alani, waana macalin u dhashay dalka Nigeria, halka ciyaartooyda ajaanibtana lagu kala magacaabo Emmanuel Abayom iyo sidoo kale Asagwa Kingsley. Anwar Said Cali Shakunda oo ah weeraryahan aragtay kala dhaxayso kubada markay taalo diilinta ganaaxa ayaa loo dhiibay lambarka 12aad ee naadiga. Emmanuel oo ah ciyaartooy ka ciyaara difaaca dhexe ayaa loo xiray nambarka 15aad ee naadiga, halka Kingsley oo ah ciyaartooy ka ciyaara garabka isagana loo xiray nambarka 14aad ee kooxda kubada cagta ee Dekedda. Ugu horreyn waxaa soo bandhigista ciyaartooydan ka hadlay xogayaha guud ee naadiga Cabdullaahi Bashiir Quatre, wuxuuna farxad ka muujiyay saxiixyadan cusub ay sameeyeen naadiga, wuxuuna kaloo kalsooni ka muujiyay in Dekedda ay ku soo laaban doonto wadadii guulaha ee lagu bartay. maanta waxaa idin cadaynaynaa haddaan nahay naadiga Dekedda, anigoo ah xogayaha naadiga Dekedda. macalinkayna waa macalin Nigerian, labada ciyaartooy aan keensanna waa Nigerian, iyo Anwar oo dalka Soomaaliya wuxuu ka yahay aad aaminsantihiin. marka isaragga labaad wejiga hore aan ku bilowno horyaalka ma ahayo insha Allah haddii ula yiraaho. kooxdan hadda shaqo badan ay wadaa insha Allah, waxa waaye meeshii inuu laga bartay inaan tagno aan ku weynaa haddii ula yiraaho. Dhinaca kale waxaa dareenkiisa ka hadlay weeraryahanka cusub ee naadiga Dekedda Anwar Said Cali Shakunda, wuxuuna dhankiisa farxad ka muujiyay inay u rumoodo riyo ku riyoon jiray oo ahayd in mar uu ku soo biiro kooxda kubada cagta ee Dekedda oo 3 jeer oo xiriir ku guuleystay horyaalka Somali Premier League. runtii shaqo aad u badan aan ka sugayaa. Dekedda meesha joogi jirtay iyo meesha hadda joogto isku mid maahan, laakiin anaga waxaan rajaynaynaa insha Allah meesha loogu talgalay inaan ku soo celino, ilaahayna uu garab nagu siiyo. runtii si aad oo farxad aan leeso dhaweeyay, runtii aan aad ugu faraxsanahay. maxaa jidhay ciyaartooyda hore saama loo soo dhaweey jirin, wax lagu farxo waa ciyaartooy haddaan nahay wax aad aan ugu faraxno waaye. runtii intii soo dhaweysana waa u mahad celinaa. insha Allah waxaan rajaynaa tartamka inaan si fiican ugu qayb qaadano insha Allah. kooxda kubada cagta ee Dekedda ayaa sanadan sameysay hoos u dhac ugu balaarnaa maadaama ay qaybtii hore horyaalka ku dhameysteen booska 9aad ee kala sareynta horyaalka, laakiin waxay rajo iyo kalsooni buuxda ku qabaan inay soo laabasho taariikhi sameyn doonaan xilli bartamaha bisha May laamba qaadi doono wajiga labaad ee horyaalka Somali Premier League oo xagaagan xiiso gooniya xambaarsan.